شمضان أخلاق وناجة يا أمينات وموتشي ويلكاس يرى صوماليا قلت إبراهيم ودمانتين شرف بلارن ديجانهان يا صوماليهان ينسويس فنتي كده شمضان دارهان النيرة قفل النيرة إنت عليك أو لعل إنت عليك هلاي oo door biday in qofkii dhibaatada ku dhacday uu raadsado u geeyo inaan halkan ugu mahadnaqno taana ay ku dhiirigelino dhalinyarada kale iyo qoysaska kaleba in akhlaaqda wanaagsan ay ku daydaan runtii inta badan waalidiin baan nahay halkan fadhidan malayna marka laga tago kooxda ciyaartooyga badankooda waalid ahaanna wax ka wanaagsan ilmahaagu inuu akhlaaq ku koro ma jirto waxa kale oo dhan adduunka maalna waa la helaa maalna waa la waayaa kulankani oo ahaa mid uu madaxweynuhu ku dhiirigelinayay akhlaaqda wanaagsan iyo aaminaadda uu la yimid guulad yare ayaa wuxuu madaxweynuhu sheegay in diin ahaan dhaqan Soomaali ahaan iyo xadaaradda adduunka ugu wanaagsan ba ay tahay aaminaadda ka xukuumad ahaanna ay ka go'an tahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada haldoorka u ah deegaanka Soomaalida si ay ugu daydaan dhalinyarada kale ee la midka ah diinteena iyo dhaqanka Soomaalida iyo xadaaradda adduunka ka jirta intaba waxa ugu wanaagsan bila aadam lagu amaana waa aaminaadaas inuu wiilkaas yar ka timaado isagoo waliba markaa hore rajaynayn inuu sumcad ku helo in halkan la soo fadhiisiyo oo television laga duubo isagoo aan taa ku fikirayn inuu arrintaas sameeyo runtii wax aad iyo aad qalbigana u taabatay farxad gaar ah gelisay weeyaan sidaa daraadeed waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa guuleed iyo waalidka garaan hooyadii deeqa oo akhlaaqdaas kaalinta ugu weyn ka ciyaartay maadaama uu akhlaaqda ilmaha meesha ka soo bilowda uu guriga yahay inay ku tabacday inay bartay inuu xaqa islaamka ilaaliyo inuu iska ilaaliyo inuu maaragtay door bido akhlaaq wanaag runtii aad iyo aad bay ugu ammaan yihiin qoysku marka inaan arrintaas ugu mahadnaqno xukuumad ahaanna wixii aan la qaban karno si aan u dhiirigelino dhaqanka noocaas inaan khasaare ahayn inaad aamin noqoto inaan khasaare ahayn inay faa'iido leedahay si loo ogaado waxa laga yaabaa 300 kun guuleed haddii maalinkii iska qaadan lahaa barabar hadda uu isticmaali lahaa bad wax buu gelin lahaa laakiin maanta sumcadda taniyo inta uu dhimanayo daba soconaysa oo kale muuna heleen haba yaraatay marka wax aan lacag goyn oo ah sharaf iyo karaamo iyo wanaag iyo bulshada dhexdeeda oo inta kaliya meeshu maraba ku ixtiraami doonta ayuu helay ilaahay baa waafajiyay anaguna aan ku faraxsanahay wiilkanagaas inuu hawsha yeelo dhammaan dhalinyarada deegaanka iyo intaan dhalinyarada ahayn waxaan ku waaninaynaa inay arrinta raacaan oo ay ku daydaan hooyana waxaan leenahay hooyo fiican oo tusaale ah ayaad noqotay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay adigana ugu mahadnaqaynaa madaxweynuhu waxa uu sidoo kale sheegay in waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabada ku ah nolosha qoyska guuleed ay xukuumaddu wax ka qaban doonto waxaan guuleed kala hadli doonaa waxa uu door bidayo oo haddii ay tahay waxbarashadiisa uu sii wato inaan u fududeyno qaabkii waxbarashadii ka istaagtay uu si regular ah ugu sii wadan lahaa inaan xukuumad ahaan ka caawino diyaar baan nahay waxaa kaloo diyaar u nahay in duruufihii ku kalifay inuu waxbarashada wadan wax kala qabano ee ahaa xoogsiga uu xoogsanayay qoyska labada arrimood oo diyaar baan u nahay markaan hadda shirka iska dhamayno insha Allah in la fadhiisan doonaa cidii ay kala xiriir lahaayeen iyo qaabkii hawshaas ahaydna waxbaan iska weydiin doonaa maadaama mikrofoonka inaan ku sheegno aanan rabin laakiin si ballaaran inaan u taageerayno ayaan cadaynaynaa aad iyo aadna ugu faraxsanahay maanta laga bilaabana agoon ma aha guuleed ummadda Soomaaliyeed dhan deegaanka Soomaalida ku nool ayaa aabo iyo walaal u ah oo hiil u ah taaynu ogaadana waa muhiim iyo xukuumadda ugu dambeyn mudane Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa kulan gooniya la qaatay hooyo deeqa iyo wiilkeeda Guuleed Ibraahim si ay uga wada hadlaan waxyaabaha daruuriga u ah ee nolosha qoyska dabari kara iyadoona ugu dambeyn madaxweynuhu u ballan qaaday dhul ay qoyskoodu degaan gaari uu ku shaqaysto iyo waliba waxbarasho nooca uu raba ah Guuleed Ibraahim ayaana noqonaya bajaajlihii sanadka ee ammaana xafid iyo dhaqan wanaagsan la yimaada